haddii maanta siyaasiyiinteena maalinba nin guri kale dhulka lagu jiido iyadoo system loo adeegsanayo war caruurteena dambe aynu aayahooda ka talino waxaan oranayaa anigu aanan hore u oranin oo maanta aan halkan la soo istaagaya haddii saraakiishina gabeen annaga tuutaha u xiranayna oo garaadada bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin maanta halkan waxaan rabaa inaan kaga hadlo doorashooyinka ka socda Boosaaso gaar ahaan kursiga Hob 169 ee uu hore ugu fadhiyay Jamaal Maxamed Xasan imikana la doonayo sidii kursiga si awood ah oo ka baxsan habraaci lagu soo saxeexay 17 September magaalada Dhuusamareeb Baalmarsan in lagaga qaado ama lagaga wareejiyo kursiga Hob 169 waxaan jecelahay inaan ku horeeyo sababta hadda keentay in Boosaaso loo soo raro doorashooyinka oo laga soo raro Garowe oo uu dani u doortay inuu hadda Boosaaso bilaabo waxa ay tahay in uu boobo kuraasta taalla magaalada Boosaaso si aanay carqalad ugu noqon labada kursi ee midug yaala ee Beesha Cumar Maxamuud ee tiridinina ma faragelin kartid isagoo ka baqaya inay ka tusaale qaataan isimada bari joogaana inay yiraahdaan anagana kuraasteeda lama faragelinayo si uu taa uga hortago hadda wuxuu bilaabay inuu kuraasti Boosaaso bilaabo waxaan la hadlayaa marka koowaad isimada Beesha Warsangeli ee Sanaagi Haylaan ku matala inay soo xulaan nabadoonnada keenaya ergada isimadaas oo sida hadda la arkayo uu door la xal uu ku leeyahay dan isagoo raba inuu kuraasta marmarsiyo uga dhigto una boobo isimadu haddii maanta Ilaahay nasiib u siiyay inay soo xulaan wax inay dhageystaan bay ahayd dhawaaqa dadka ka soo jeeda Sanaagi Haylaan oo ay u dhagraariciyaan amaba ay ku daydaan isimada kale ee aan kuraastooda la boobaynin kursigan maxaa haddaba ku si ah kursiga Jamaal waxa si ku ah oo target looga dhigtay muuqa iyo ka muuqashada uu ka muuqday golaha wasiirada ee dawladda federaalka Soomaaliya isagoo kaalintiisa ka qaatay waxqabadka gobolada Sanaagi Haylaan ayaa waxa loo daba socdaa in la buriyo oo la baabiyo sidii dhaqankii caadada u ahayd taliska Garowe ka taliya oo aan marnaba ogolayn qof madaxa soo qaado ka soo jeeda goboladaas waxaan isimada kula dardaarmaya anoo xushmad iyo ixtiraam u haya in kuraasta kaleba sidii doonta aad ka yeela laakiin kursiga 169 oo taagan qadiyad adag ama khad cas oo aad iyo aad u adag in aan loo ogolaanin inuu dani sidoo doono ka yeelo sidii horeba dhalinyaro joogta Garowe ama meelaha ka sii qaylinaya ay meel walba u marinayeen ay u lahaayeen kursiga ma heli doono Jamaal waa laga qaadaya oo hore loogu goodinayay ilaa laga soo gaarsiiyay waa in uu dhunkada gacanta Aaranjan iyo dani hadii uu Jamaal doonayo in uu kursiga qaato dani iyo inta la maca ah ee la mowqifka waxaan u sheegaynaa dibno lagu dhunkado gacmihiina nuguma yaalaan kursigana hadii faragelinta iyo awoodda systemka la rabo in lagu qaato aan gacanta lagala bixin waxaanu idin ballan qaadaynaa aan hore wali halkayna ama saxaafad aanan uga sheegin cawaaqib xumada ka dhalan doonta inaan la mahdin doonin inay jiilba jiil u dhiibi doonto inuu kursigaasi nooga dhigan yahay maqaamkii iyo magacii Beesha Warsangeli ku lahayd ummadda Soomaaliyeed in lagu aasi doono taana aanu ka xigno in ay ka dhici doonto dhigay far ama in ay dhici doonto in ay hadhowta gacmahayga la dhunkan doono insha Allah taala waxaan u sheegayaa saraakiisha Beesha Warsangeli ee indhaha ku haya waxa ka socda Boosaaso ee isqarinaya maanta waa maalintiinii hadday isimadii taa garteen oo garashadoodii taa noqotay oo gudoonkoodu noqday mid weecsan oo sandareero maanta qaatay waxaan idinka codsanaynaa waa doorkiinii inaad doorkiinii qaadataan waa taas baan leeyahay
siyaasiyiinta warsangeli dal iyo daba jooga waxaan leeyahay waxa la duugaya la aasaya kursigii Jamaal ma waa siyaasiyiintii warsangeli hore waxa loo weeraray gudoonkii baarlamaanka Puntland waxa lagu weeraray golihiisii dad baa lagu laayay laba cali waxba iskama weydiin xildhibaanaan kamid ahay anigii Cabdi Jamaal si dastuurka ka baxsan oo sharci darro ayaa golana laga soo saaray iyadoo soo doorteen beelahayagii oo codkoodii aan ku fadhinay iyadana laba cali waxba isma weydiin maantana kii Jamaal baa loo soo dhigtay waxaasina waxay ahayd maalintii dhoobo la dilay ayaa cid walba la dilay haddaba dhoobo xilligiisii maxaa khaldanaa maalintii dhoobo la dilayay ee golaha la weerarayay ismaa joogay Israa'iil baa joogay waxaan isugu nimi guriga dhoobo daareed subaxnimada 6 subaxnimo annagoo ah simo iyo siyaasiyiin iyo Israa'iilba waxa la saaray guddi waxa la yiraahdaa arinta laga hadlo cidii diiday hor istaagtay waa la garanayaa cidii diiday ee hor istaagtay waa la garanayaa aanu hadal labaan kuna dhoobo hadaba dhoobo waa naga diido ma hadli kartaan biir cidii idinka mudnayd haddii hadli weeday idinkuna hadli maysaan dhoobo waa jooga waa la weydiin karaa in aanu maalinta ku tala galay in aanu oodahayga shalfiska ee ka gurana garoowe talo aan isugu noqono gobolka Sanaag iyo Highland laakiin cid baa diiday cidii diiday baana mas'uuliyadda ilaa ay haddana iska leh maanta taala maanta kursiga Jamaal kama duwana kuraasta kale laakiin waxbuu kaga duwan wuxuu kaga duwan yahay waa saddex qodob weeye Jamaal oo ah wasiirada ugu firfircoon ee u matalaya dawladda federaalka Jamaal oo noqday nin deegaankiisa deegaan doorashadiisii intii awoodiisa wax ka qabtay iyo isagoo kamid ahaa isaga senator Siciidaba inay farac kamid ah jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ay ka furaan magaalada Baran iyadoo la doonayay in faraca laga furo magaalada Qardho oo dani dhagax dhigay taasina waxay noqotay dagaalkii ugu dambeeyay ee lagu la dagaalamayay matalaada Jamaal iyo qodobka afraad oo ah in la leeyahay gacmaha ayaga dhunko waxaan se u sheegayaa dibna lagu dhunkado gacmaha malihiin ilaahayna nooma abuurin waxaan rabaa inaan laba qof la hadlo labada qof aan la hadlayaa waxa weeye waa Caydaruus iyo Cartan oo u matala beesha siid ama guddiga doorashooyinka heer maamul goboleed Caydaruus waxaan ku aqaanaa nin sharaf badan karaamo badan qable madaxa aan hoos rogin Caydaruus oo adigoo ah gudoomiyaha jaamacadda ummadda faraceeda magaalada Baran doorka uu Jamaal ku lahaana ka marxaati ah inuu jaamacaddaasi ka hirgasho magaalada Baran waxaan maanta kula dardaarmayaa inaan yamyam iyo qadaad weyn aan u dhalan beesha Yuusuf Haruun ee Dubays in la yiraahdo waxay doorteen kursigii Jamaal magac xumay ku tahay wax taariikhda aan ka hadhin bay ku tahay ha aqbalin hana yeelin nin lagu yaqaanina ma ahayn nin dulmiga jecel ma ahayn nin sandareero qaata oo sharaftiisa iyo karaamadiisa istana ma ahayn Cartan waxaan leeyahay oo u matalaya beesha siid Cartan waxaan leeyahay waxa booska ku keenay Jamaal si aan loo dulmiyin kursigiisana aan dheeldheel loogu qaadan Cartanow wax ayaama haray 7 casho kadib waxa laga yaabaa in doorashooyinku soo gabagaboomaan nin dhalinyaro baa too sharaf badan aqoon-yahana ha ku ciyaarin karaamadaada iyo sharaftaada yaan la oran maanta yimim iyo qadaad weyn iyo bahdul baanta uu soo urursaday deni waxay maanta door ku qaadanayaan ama ay xukuminayaan masiirka reer dhahareed ama reer barameed oo la leeyahay waxa u doortay dad noocaas dadka noocaas ee beesha Yuusuf Haruun 100 xildhibaan ergaba waxaan 100% hubaa inay siinayaan codkooda hal dabala Jamaal laakiin waxa la rabaa wax aynaan garanay meel ay ka yimaadeen in ay rabaan inay kursiga weydaariyaan oo tindho lagu xidho labada xubnood ee sid noo metelana waxaan leeyahay maanta magac iyo magac xumo waa kala dooranaysan gacantiina ku jiraan haday isimadii carareen maanta idinka gacantiina ku jirta inaad inacabeysaan oo aqliga ummadda reer dhahareed ama reer Baran ama Sanaag iyo Highland lagu ciyaaro aad aqbasheen idinkoo soo taagan dhaxal xumo magac xumo iyo dadnimo xumo ay idin noqon doontaa waxaan la hadlayaa qurba jooga beesha warsangeli iyo beesha warsangeli gudaha joogta waxa maanta la dilayaa waa magaciini waxa maanta halka la gaarsiinayaana
waa dad inaga inala mida waxaan idiin sheegayaa deni iyo inta aaranjane la caqliga ahi awood ciidan kuraasina kuma qaadanayaan reerna reer ma qabsan karo waxa laynagu dilayaa wax kale ma aha si dhooba lagu dilay annagana lagu dilay maanta la rabo in jamaal lagu dilaa wax kale ma aha waxa weey waa system kaasoo u saamaxay inay door ku yeeshaan in la sameeyo wixii soo dhacay iyo wixii hadda dhacayaba dadka gudaha daba jooga Warsangeli waxaan leeyahay waa inaan systemka burburinaa systemkan la leeyahay waa Puntland maalin walba laynagu gumeynayo guryaheena inta laynoogu yimaado waxba laynama yeeli karo waxa Garowe iyo Boosaaso maalin walba laynoogu jiidaya waa system weey waxaan idinka codsanayaa in aynu systemka la dagaalano in aynu systemka meesha ka saarno in haddii kursigaas uu boob noqdo aynu ka jawaab bixino wax mustaqbalka iman doona in aan mar dambe waxaas oo kale nagu dhicin haddii maanta siyaasiyiinteena maalinba nin guri kale dhulka lagu jiido iyadoo system loo adeegsanayo war caruurteena dambe aynu aayahooda ka talino waxaan oranayaa anigu aanan hore u oranin oo maanta aan halkan la soo istaagaya haddii saraakiishina gabeen annaga tuutaha u xiranayna oo garaadada garbaha annaga u saaranayna ciidankana hogaaminayna systemkaasina waa inuu meesha ka baxa number 1 waa in dekada Boosaaso aynu qaybteena ku yeelanaa oo aan wadada la marin ilaa la ogolaado qaybta aynu cashuurta Boosaaso ku leenahay maadaama aynu deegaankeena ay ugu weyn u yahay magaalada Boosaaso haddii la diidana waa in albaabada isugu xidhnaa ay garacad u noqotaa dekad maanta dadka oo dhan waa qodobka koowaad waa in wadooyinka la galaa geed iyo guri iyo bohol iyo dooxo iyo buurbuur iyo laami meel kasta waa la galaa oo la joojiyo isu socodka Garowe iyo Boosaaso waa in dhaqaalaha ka soo baxaya dekada Boosaaso maalinba nin lagu jiidayo waa inaynu ama diidnaa ama aynu duminaa ama aynu doorkeena ku qaadanaa mar labaad waxaan u soo jeedinayaa oo aan leeyahay dhammaan beelweynta Warsangeli meel kasta ay joogaan waxa maanta la jiidayaa maaha jamaal waxa la jiidayaa waa beel dhan oo maalin walba la rabo systemka in lagu abuse gareeyo oo lagu cayreeyo oo caqligooda iyo kartidooda iyo aqoontooda lagu dilo waxaan u sheegayaa dadka reer maakhir ee daliya dibadba jooga aamina maakhirnimada maakhir ha noolaato maakhir ha jirto kuraasteena waxa maanta loo boobayaana waa system aynaan gacan ku haynin oo maalinba nin siyaasiga lagu jiidayo jamaalna keligii maaha haddaan muuqaygu meesha ka muuqana maskaxdayada iyo awoodayada iyo kartidaydaba jamaal been dhinac jirtaa wabillahi tawfiiq wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh